Shabakada caalamiga ee Garsoor News ayaa had iyo jeer u dhegtaagta baahiyaadka aasaasiga ah ee shacabka. Abbaarasaaka subaxnimadkii ayaa waxaanu booqanay kaan ballaaran oo ku yaal duleedka jaamacadda Burco. Halkaas waxaanu kula kulannay dadyow kala duwan islamarkaasna u badan maato iyo carruur, iyagoonan haysan baahiyaadka aasaasiga ah sida waxbarasho, caafimaad, leydhka, agabka iyo fayadhowrka marka laga reebo biyo kooban oo ay helaan hay'adda u gargaarta shacabka tabaalaysan ee Taakula Foundation. Haddaba dadkan ayaa waxa u hoy ah buulal yaryar iyo cooshado oo dhaxanta iyo roobka mid aan ka celin. Muuqaalka guud ee xaafadan ayaa ah mid ku jirto jawi cakiran, islamarkaana ishu bini'aadamku ka damqanayso xaaladda ay ku sugan yihiin. Dadkan ayaa waxa ay noo shaaciyeen sababaha keentay meeshan go'doonsan, waxayna noo xaqiijiyeen in badhasaabkii hore ee gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabyatiro oo ka barakiciyay goobtan lagaga dhawaaqay go'doonsitaanka Somaliland. waxaana ka mid ah hadaladooda. waxaan salaamayaa dhammaan warbaahinta iyo inamada noo yimid aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa cid kasta oo walaalnimo iyo mas'uulnimo naga rabtana aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaan kaloo ku daray waxaan masaajid baan u leenahay, masaajidka iyagu leedh male maxay ahayd waxa lagu eedaama waxa weeyaan waxa noo baxa soolar yar soolartu xilli qabaha way dhacdaa dabkeedu u dhacaa. masaajidkayga lagama eedaamo malcamad baa noogu dhigan jiray, carruurta noogu dhigan jiray, ninkii macalinka ahaa carruurta malcamada noogu dhigan jiray markuu meeshii fogaanteedii iyo dhaxanteedii arkay wuu naga tegay. awlaadu waa bilaa malcamad, waa bilaa iskuul, halkaa dayac baa naga haysta, waxbarasho la'aan baa naga haysata. waxaan ku soo noqonayaa Allahumma salli ala Maxamed, waxaan ku soo noqonayaa hay'adaha iyo caalamka ee wax caawiya. ilaahay baa wax caawiye sida hay'adaas ay biyaha noogu keentay ee nagu caawisay ee nagu eegtay ee markay dayacayaga iyo danteena haysata iyo waayaha haysta yarkeen ay biyaha noogu keeneen. annaguna waxaan leenahay xilli dhaxameed baan ku jiraa. buulashi waxay maxay ahayd buulashi way naga googo'een, bixii way naga dhamaadeen, maryihii aan maxay ahayd awlba meel nagu jamriye way naga googo'een. caalamka waxaan u bandhigaynaa dhaxan inay hayso oo bustalaan nagu dhacday oo carruurtii naga dayacantay oo iskuulaan hayso wax wal oo dhibaato adduunyada ka dhacdaaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay magan baan uga nahay. waxaan uga baraynaa cid kasta oo adduunka caalamka caawimada ilaahay baa wax caawiye wax ku tartaa inay wax nagu taraa oo carruurtii bustayaal male oo waxay ka dhaxanta ka galaan male oo hoy malihin oo guryo malihin oo biyo malihin oo leesh malihin oo maxay ahayd wadooyinka waana laga xidhay oo waxaan qurdumarkii hooyooyinka meel noogu dhalaan ma haystaan, xanaano la'aan baan haysataa. hadday dawladda cusub tahay, hadday hay'adaha tahay, haddii bal xitaa badhasaabku wuu joogaa magaalada isaga laftiisa ay tahay, bal inay hoos noo eegaan maxaa dhadayay dhaxanta iyo dabaysha iyo meesha aan ku jirin iyo siigada ka dhacaysa bal inay hoos noo eegaan maxaa dhada hoos noo eegaan baan aad iyo aad ugu kalsoonahay. Cumar Saleebaanna boqolkiiba boqol isaga waanu mahad celinaynaa. masaakiintu taakuleeyaa waayo markii annagana soo eegay uu arkay dhibaatada meesha naga haysata markii ugu horeysay wuxuu noo keenay biyaha. marka Cumar Saleebaan waanu u mahad celinaynaa. dhooxaanu ka soo dhaasan jiray xitaa biyo u doonan jiray dhibaatada naga haysata biyo la'aanta. maxaa dhada marka Cumar Saleebaan khayr iyo xasanad Allah siiyo waanu u ducaynaynaa isaga maxaa dhada waanu u mahad celinaynaa laakiin cid kale oo na eegtay ma hayno. assalaamu calaykum. annaga mid biyaha waxa aad biyo 3 bilood noogu caawiyay. waxaanu doonaynaa inay hay'adaha kalena nagula soo xidhiidhaan oo ay noola yimaadaan buulashaanu ku jirno iyo halkaanu ku nool nahay inayna arkaan oo ina sawiraan baanu doonaynaa oonu rabnaa. diracyaashii way naga madheen oo garadii way naga madheen waxaan ku uri diraysa bixii way naga madheen si way naga madheen mudix baanu taaganay mudix baanu taaganay mudix bustayaashii way naga madheen. hay'adaha caalamiga noo eegaan oo indhaha noo furaan oo ay gacan wanaagsan noo soo fidiyaan sida Cumar Saleebaan oo kale uu biyaha noo keenay uuna waraabiyay haraadkii naga biyay hay'adda Taakulo. waxaan ka rajaynaynaa sidaas oo kale iyaguna inay noo soo galaan iyo ganacsatada islaamka iyo caddaanka iyo madowga xawaariya wixii islaam inay noo soo galaan baan jecel lahay oo ay hoos noo eegaan waayo buulashii iyo bacihii iyo bustayaashii wixiiba way naga madheen. dhaxan baanu ku ayaan naftii noo keentay. waraabayaashaa naga qaata, waraabadowgaa naga qaata, waraabaha soociyaa naga qaata. waxa weeye cidlaan fadhinaa meel magaalada ma joogno, leydh ma lihin, biyo ma lihin. biyo waanu leenahay ninkaasaa noo keenay Cumar Saleebaan ilaahay dembigiisa iyo kii waalidkiiba ha dhaaf laakiin leydh ma lihin. waxaanu cunno
ilaahay baa deen la siiyo noogu ballan qaaday laakiin wax waaweyn oo aan ku sheegno ma hayno buulashii way naga madheen waxa laaleeyo waxaan ku jiraa ma jirto bacaan ku jiraa dadkan ayaa magaalada masaafo dheer u jira waxayna ubadkooda yaryar ee ardayda ah kula kulmaan dhib in ay gaadhaan iskuulka maadaama xaafadoodu kiiloomitir aad u badan u jiraan magaalada waa kuwan iyaga oo cod dheer baaq ku diray waxaan ka soo gurnay xaafada gurigii martida waxaan u gurnay meel jaamacadda ka shaqeysa waxa ka madaxweynaha ka codsan anaga ciyaar iskuulka dhigta iskuulada Sheekh Bashiir marka horena haysanay wadooyin waxbarasho imikana naloo soo daadiyay meel cilaa aanan iskuulkii gaadhayn anagoo board la tagayno waxaan ka codsanaynaa marka dawladda cusub iyo hay'adda taakulo in ay nagu tabar qabtaan haddaan nahay ardayda waxbarata ayna geeyaan iskuulada wadooyina noo sameeyaan si kastaba ha ahaatee maaha markii horeysay ee dad noocana baaq u diraan xukuumadda cusub ee Muuse Bixi iyo hay'adaha caalamiga ee deeq-bixiyeyaasha isku soo wada duuboo kaamkan ayaa waxa ay intaha ka laabtay baahiyaadkooda xukuumaddii hore ee Axmed Siiraayo iyo madaxda gobolka Togdheer dadkan waxa ay rajo weyn ka qabaan xukuumadda cusub iyo hay'adaha caalamiga ah waa Axmed Kayse Yaasiin Deeragaad iyo Cabdirasaaq Xasan Abshir Warsan News